aad ay u qurux badan tahay adiga muuqaalkan daawanaya inaad hubiso Facebook-gaaga ammaankiisa. Muuqaalkan waxaan kuu tusayaa qaabka ugu fudud ee aad ku hubin karto ammaanka Facebook-gaaga. Farsamadan haddii aad daawato kadibna aad dabaqdo waxaan kuu sheegayaa waxa kale ogaan doontaa ammaanka Facebook-gaaga halkuu la egyahay iyo intuu yahay. Ogsoonowna tala ayaan ku raacsin doonaa. Ila daawa haddaba muuqaalka oo dhammaystiran. Kamera هذا هو هاي isku wanaagsan saaxiibayaal. Hubinta ama inaan hubino Facebook-gaaga laba qaybood ayaan kala qaadan doonaa. Midna waa mid adiga ku jirta, midna waa mid aniga jirta. Midda adiga ku jirta tala ayaan ka sii doonaa. Midda aniga jirtana iyadoo toos ah ayaa muuqaalkan kugu tusayaa ee marka hore ila daawo midda saxda ah ee aad ku aran karto. Saaxiibayaal, si aad adkayso Facebook-gaaga muhiim waaye afartan qodob inaad dabaqdo. qodobka koowaad waxa waaye hubi in lagu isticmaalayo. Tusaale, haddii aad rabto inaad ogaato Facebook-gaaga in lagu isticmaalayo oo kale sidaan sameey. Tag saddexda dhibcood ee geeska ah hoos u wad kadibna ka dooro setting and privacy. ka sii dooro settings. halkan marka imaado tigisa halkan ay ku qoran tahay password and security marka ku dhufato qaybtan dhexe ee ku qoran where you are logged in oo ah meesha aad ka ogaanayso in Facebook-gaaga lagu isticmaalayo. Tusaale, dooro CO. halkan ayaad ka arki doontaa in Facebook-gaaga lagu isticmaalayo. Tusaale, hadda Facebook-gaaga waxa isticmaalaya dad kala duwan. waxaan u baran taleefanka Galaxy J4 Plus, Android Muqdisho laga soo galay mar kale Android. xitaa markuu Android ku dhahayo qaybta hoose wuxuu kaaga soo qorayaa cidda kula isticmaalaysa ama meesha laga isticmaalayo. Tusaale, haddii Facebook tahay Facebook ay leeyahay ogow midka active ka ah waa adiga. wixii soo haray ka daleed qaybtan. si aad u daleedo way fududahay qaybtaas hoose ee ku qoran log out of all season ayaad dooranaysaa kadibna guud ahaan halkaas ayay ka bixi doonaan. meeshan waa meesha laga ogaado akoonkaaga in lagu isticmaalayo iyo in kale. ka sii dooro log out. qof kasta kula isticmaalayo Facebook-gaaga wuu ka bixi doonaa. kaliya adiga ayaa ku soo hari doona active Samsung Galaxy J4 oo kaliya ayaa ku soo haray. qodobka labaad waxa uu yahay bedel password-ka Facebook-gaaga. haddii tusaale password-ka Facebook-gaaga dib u laabo haddii password Facebook-gaaga uu ahay runtii mid 5 bilood 6 bilood aan la bedelin fadlan hadda bedel. password marka bedelayso tag password and security. marka qaybta password and security doorato qaybtan hoose ee ku qoran tahay change password ayaa dooranaysaa. halkan waa meesha aad ka bedeli lahayd. qaybta koowaad waxaad gelinaysaa password-kaaga hore, halkaana waxaad gelinaysaa password-kaaga cusub. mar kale qaybta hoosena waxaad gelinaysaa password-kaaga cusub ayaa mar kale ku celinaysaa. ogeysiis muhiim ah. password-kaaga yuusan ka koobnaan numberkaaga ama magacaaga. ha ahaado password isku dhex jir ah oo kala duwan. waana muhiim in password-kaaga uu ka dheer yahay magacaaga, numberkaaga iyo wixii la midka ah. 3. bedel numberka aad ku isticmaasho. waa muhiim Facebook-gaaga inaad bedesho numberka aad ku isticmaasho. sababtoo ah waxaa laga yaabaa in numberkaaga inta lagu soo galo kadibna taleefankaaga si fudud lagaa qaato oo koodhka lagaa akhrisado. si taas aysan ku dhicin waxaan kula talinayaa inaad bedesho numberka Facebook-gaaga. waxaad tegaysaa personal and account info kadibna waxaa kasii dooranaysaa contact info. telephone numberska halkan ku xusan ayaa laga rabaa inaad bedesho kuna soo xusto halkan telephone number kale. aniga waan qarinayaa sababtoo ah haddii aan soo bandhigo dadka tuugada ah xogaa waxay helayaan luuq ay iga soo qorteeyaan. fadlan ka dhigo numberkaaga number aan ahayn. wax badan ayaa kuu fududaanaya. sidoo kalena waxaan kuu talinayaa in aad number labaad ku xirato si hadhowbeeta aad ugu badbaado haddii numberkaas cilad ay kaaga timaado. 4. qaybta afraad waxaa loo yaqaanaa ixasuusi. macnaheedu waxa waaye haddii tusaale qof uu isku soo dayay akoonkaaga inuu soo galo waa lagu xasuusi doonaa. haddii xitaa qofkaas uu kaa dhaco password-kaaga waa lagu xasuusi doonaa. sidee? si fudud waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay
password and security hoos u wad qaybtan ay ku qoran tahay two factor ayaad ku dhufanaysaa dhammaantood on wada saaro numberna halkan ku xuso muuqaal ayaa jiro oo aan ka soo sameeyay qaybta afraad muuqaalkaas ayaa daawan kartaa qaybtan markaad soo programmiso gadaal u soo laabo afraad oo faahfaahsan muuqaal oo horey uga soo duuba ayaa jire daawo qaybta commentiga ayaan kugu soo dhigayay okay xogaha waa ku soo tusay tala aan ku siiyo ammaanka facebookkaaga waxaa sidoo kale mas'uul ka ah furaha facebookkaaga waxaa oola jeedaa passwordka facebookkaaga hadduu passwordkaaga yahay nambarka aabbaha nambarkaaga iyo magac la israacsiiya iyo wixii la mid ahba ama waxyaalaha fudud sida magacaaga magaca walaasha iyo magaca abtiga ogow facebookkaaga ammaankiisa ma sugna fadlan waan kaa codsanayaa furaha facebookkaaga hadda la joogo bedel una bedel wax aysan keeni karin dadka adiga kugu hareeraysan haddaad furaha bedesho waxaan sidoo kale kugu darayaa waad iloobi kartaa furahaas ee waxaan ku leeyahay furahaaga meel ku qoro buug ama warqad si hadhowbit markaad furaha u ilowdo aad u soo qaadato una xasuusato furahaaga oo adag oo kala duwanna waxay keeni kartaa akoonkaaga facebooka inuu noqdo mid ammaan ah mar kale waan kugu celinayaa facebookkaaga waxaa mas'uul ka ah furahaaga markii laga soo tago hadda wixii aan ku tusiyo la gaarsii saaxiibadaada iyagana si ammaankooda u hogayaan kulwacan ayaan kuu rajeynayaa